Ara aad u xoogan ayaa ka taagan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya taasoo ay qabaan qaar ka mid ah saraakiisha iyo hay'adda sirdoonka ee wadanka Turkiga kadib markii ay sheegeen in lagu shirqoolay qorshe uu ka dambeeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya Mahad Salaad Maxamed kaasoo la sheegay inuu ku hogaamiyay diyaaradaha dalkaasi Turkiga ee samcadda weyn lahaa inay baabiyaan isla markaana ay duqeeyaan meel ay ku sugnaayeen caruur iyo dumar tiyo ay ugu tilmaameen in halkaasi ay ku sugan yihiin kooxda la holi waayay ee argagixisada ee loo yaqaan al-shabaab sida ay wararku sheegayaan waxaa marka ka dambaysa soo taraya xogaha dhabta ah ee ku aadana in koox al-shabaab ahayd oo weerar ku soo qaaday ciidamada Nisa oo ayagu marayay deegaano ka tirsan magaalada Afgooye ay baxsadeen iyagoo bad qaba bedelkiina Mahad Salaad iyo kooxda maamusha hay'adda sirdoonka qaranka Nisa ay ku hogaamiyeen sirdoonka wadanka Turkiga iyo diyaaradihiisa meel khaldan inkastoo aan si dhab loo hubin in diyaaradda ay hagayeen militariga Soomaaliya ama se marka la eego ay gacanta ku hayeen iyo in ay sidoo kale ay ka socotay wadanka Turkiga laakiin arinta la isku wada raacsan yahay ayaa ah in xogta iyo sirdoonka lagu shaqeynayay ay iska lahayd hay'adda sirdoonka qaranka ee wadanka Soomaaliya Nisa kooxda kakan ee loo yaqaan al-shabaab ee argagixisada iyadu berihii ugu dambeeyay dadka Soomaaliyeed markaasi hilbahooda wareysay inta badanna u ekeed inay dawladda Soomaaliyeed ku shirqooshay kadib markay u dhigeen ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed badankooda inay burburiyeen kana qaateen agabkii iyo ciidankii waxa uu lahaaba ayaa la sheegay inay markii oreysay iyagu gacanta hore lahaayeen wararka ayaa xaqiijinaya in xubno ka tirsan hay'adda Nisa oo markaasi raaba ahaa ay kooxdu u gashay meel deegaan kamid ah deegaanada markaasi ka agdhow ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee dalka Soomaaliya sida ay wararku ay sheegayaan ama laga helay markii ugu horeysay xog sirdoon oo la faafiyay iyo kuwa kale oo inuu dad goobjoogayaal aan weydiinay deegaanka la yiraahdo Jambaluul oo ah degmada Afgooye agteeda ayaa la sheegay in ciidamada 2 maalmood ka hor loo galay ama habeennimadii habeen hore ahayd ee weerarka u dhacayo maalinimadeedii taasoo ka dhigan inuu ahaa weerarku mid la yaab maalintii Isniinta ahayd weerarkaasi dhacay ayaa la sheegay in ciidamada shabaab ay u galeen ciidanka Nisa ee hay'adda sirdoonka qaranka kadib markii ay xog ka heleen taasoo la sheegay in xogta laga soo diray isla Nisa dhexdeeda wararka qaarkood ayaa ku tilmaamaya in arrimahaasi ay dhalay karaan in ciidamada ay ku dhex jireen kooxda al-shabaab dad ka tirsan oo ayagu warwareynta siiriyay taasoo markaasi shirqoolka qayb ka noqotay waxaa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 9 sarkaal oo Nisa ka tirsan halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen waxaa la sheegay in kuwa dhaawaca iyo dhammaan dhimasho ay laayeen shabaabku argixisada ay horay u sii kaxaysteen taasna waxay dhalisay in Mahad Salaad iyo kooxdiisu ay shir degdeg ah ku qabsadaan markaasi gudaha magaalada Muqdisho kolkaana ay sheegaan inay u baahan yihiin in la kiciyo diyaaradda Bayraktar TB2 diyaaradda Bayraktar TB2 marka u horeysa balan taariikhdeeda dib u eegno diyaaradan taariikhdeedu waxa ay soo bilaabatay isla markaana si weyn u soo shacab baxday sanadkii 2019 inkasta oo diyaaraddu aysan xilligaas ahayn markii ugu horeysay la maqlo balse lagu arkay kolkii ugu horeysay dagaal ay ka qayb qaadanayso gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq ay ku leysay xubno ka soo jeeda ururka PKK ee dawladda dalkaasi Turkiga ay bursato haddana waxay si weyn u soo shacab baxday sanadkii 2019 dagaalkii dalka Liibiya uu ku soo qaaday hogaamiyihii sida weyn ay u soo hubeeyeen wadamada khaliijka qaarkood gaar ahaan dalka isku tagga Imaaraadka Carabta loo yaqaanay Jarnaa Xaftar wuxuu ahaa jaran ka tirsan ciidamada qalabka sida wadanka Liibiya ka hor intuusan sanadkii 70aadka u baxsan Mareykanka kolkii uu caariday kana soo horjeestay hogaamiyaha awoodda badnaa ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi dabadeedna ciidamo isku dubarridan caloosho shaqaystayaal caalami ah qalab xoogan oo ciidan ayuu ku soo weeraray dawladda la aqoonsanaa ee Tripoli halkaasoo la sheegay in dawladda Turkiga kaliya ay noqotay tan samata bixisay isaga waxa ka taageerayay kaliya Imaaraadka wadanka Faransiiska oo la sheegay in ay agab nooc walba siiyeen hase yeeshee waxaa la sheegay diyaaradda Bayraktar TB2 oo markaasi nidaamkeeda qaybteeda cusub ee labaad la soo saaray lagu tijaabiyay waxayna ka soo dhalaashay aagaasi iyadoo aan hal qof oo rayida dilin ayay burburisay inta badan agabkii ciidan ee uu watay Xaftar waxayna afka ciidda u dartay dhammaan ciidamadiisii sida hirka uga socday ogana soo hayaamayay dhinaca bari ee dalka iyagoo dhinaca galbeedka ku sii siqayay doonayeen inay dawladda afka ciidda u daraan haddaba diyaaradda markii dambe ayaa waxa ay si weyn looga yaabsaday dagaalkii asaguna 20 sanad kadib ka qarxay dhaxda dalalka loo yaqaan Armenia iyo wadanka Azerbaijan markaasna waxa la arkay iyadoo diyaaraddu ay wacdara dhigtay kolkaana waa marka dunida oo dhan ay u aqoonsatay inay tahay waxay ugu yeedheen mid ciyaarta bedeshay ereygaasna waxa isticmaalay wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga dalka Britain xilligaas kaasoo ku tilmaamay in waxa uu arkay wax la yaab leh tahay Ben Wallace isagoo hadlayay ayuu sheegay in diyaaradda TB2 ay noqon karto mid adduunka oo dhan samcad weyn ku soo kordhisa haddaba diyaaraddu waxa ay leedahay qayb camera taasoo marka u horeysa samaysa xog ururin ka hor intaysan weerarka qaadin waxay indhaysaa isla markaana dhegaysaa oo ay maqlaysaa arkaysaana
gaar ahaan barnaamijkeeda AI-ga ay ku xidhan oo dhulka si weyn wax uga maqalaya isla markaana u arkaya aaggu inuu yahay meel ay dad rayida ku badan yihiin kolkaana waxay diraysaa signaalo iyo muuqaalo HD ah taasoo ay la wadaagayso xarunta ay kasoo kacday ama laga maamulayo kolkaana waxaa si dhow loo arki karaya agagaarka iyo cidda ku sugan waxaana la xaqiijin karayaa inay dhulku uu yahay dul ay degan yihiin iyo meel lama degaana ama meel markaasi aag ciidamo ay ku sugan yihiin mararka qaarkoodna waxa ay meel fog ka aragtaa xataa ilaa iyo xad ayaa layidhi qaar ka mid a dadka agagaarkaas oo dhan inta hub ay haystaan iyo noocyada ay kala hubaysan yihiin taasi waa qaabka lagu guuldaraystay sida muuqata waxaana la sheegay in si jibba ah oo indha la'aan arrintaasi looga jawaabay tan ayaa haddaba shaki aad u weyn dhalisay saddex shaki oo kala duwan ayaa soo baxaya waata koobaade maadaama haatan la sheegay in hay-adda nisa laga baqayo in ay dhex galeen kooxda shabaab isla markaana ay kooxda argagixisada ay ku dhex yeelatay unugyo waaweyn oo la filayo inay xataa adeegsadeen kaararkii weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay hotel SYL in arrinta lagu dambabasayay si arrintaasi loo damiyo isla markaana dadka loogu mashquuliyo weerar argoosia la qaaday in loo faafiyay war beena taasoo lagu qoray dhammaan warbaahinta qaranka dalka Soomaaliya oo dhan oo lagu sheegay in dadka la dilay ay al-shabaab yihiin waxaa warbixinta ay soo saartay dowladda Soomaaliya ay sheegtay in duqeymo la beegsaday lagu weeraray ayay yiraahdeen weerar culus oo la qaaday iyadoo dowladdu ay markaasi ka jawaabtay weerarkaasi ay ku dishay 34 qof oo shabaab hase yeeshee taas ayaa noqotay been iyo hadur waxaana ku damaysay in 21 qof oo meesha horta meydkoodii inta la arkay ila xaqiijiyay ay rayd caruur caydi ah iyo yihiin qodobka labaad ee arrinta looga gol lahaa ayaa la sheegay in ay tahay in samcadda laga dilo dalka Turkiga iyo shirkadiisa gaar ahaan Bayraktar TB2 taasna waa ta dowladda dalka Turkiga hadeerta la sheegay inay la qomiyeysanayso Turkiga ayaa la sheegay in aad uga carooday in diyaaradda Bayraktar ay ku lug yeelato dilka rayidkii ugu badnaa ee hal mar ka dhacda dalka Soomaaliya ee diyaarad drone ay disho dowladda Mareykanka oo iyadu in ka badan dhowr iyo 10 sano diyaaradaha drone-ka ay duqeynayeen dalka Soomaaliya hal maalin dhowr iyo 20 qof oo isku qoysan marna meel ku beedilin sidaas waxa laga soo xigtay xogta ay sii deysay waxda militariga dalka Mareykanka indhaynaysa khasaaraha rayidka loo geysto inkastoo uu ku qoran yahay khasaare aad u badan oo Mareykanku rayidka Soomaaliyeed uu u geystay laakiin tani waa tii ugu weyneed hal goob iyo hal qoys ku dhacda dhanka kalena waxaa la sheegay in arrintaasi ay ka dameeyaan karaan wadamo shisheeye iyadoo bariga gudub la soo tabinayay in sirdoon la dagaalamaya dalka Soomaaliya uu ku soo badanayo shirqoolkan loo dhigay samcadda dalka Turkiga diyaaradoodii iyo sirdoonkoodii waxay noqon kartaa mid kale oo iyadana laga hortagayo ayaa la yiri heshiiska dhawaan dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay wada gaadheen dadka qaarkood ayaa qaba inay arrintani tahay qodobka saddexaad ee la doonayo in lagu bariiqiyo heshiiskaasi si dadka Soomaaliyeed u caaridaan markaana ugu kacaan dalka Turkiga ayaa canaasiir dowladda ku dhex jirta waxay abaabuleen weerarkan isla markaana waxay doonayeen dadka Soomaaliyeed ay u arkaan in heshiiskii military natiijadiisu ay noqotay in shacabkii caruurtii iyo dhalaankii Soomaaliyeed uu wixii u soo kacay wadankan la gumaaday iyadoo la tiigsanayo diyaaradaha adduunka ku casrisan ee Bayraktar TB2 si kastaba ha noqotee haatan waxaa soo baxaya in wadanka Soomaaliya ay gashay xaalado aad u waaweyn waxaana u muuqdaa in dagaalka qabow ee magaalada Muqdisho ka bilowday uu ku soo fidi doono dalka intiisa kale waxaana ka dhigan tahay in dowladda waaweyn ee wadanka isku diri doonaan sidoo kale waxay taas u egtahay in dowladda lafteeda lagu dhex jiro oo ay jiraan kooxo canaasiir dhaqaale doona kuwaas oo dal iyo heelo kala hayn dalkooda hooyo caruurtooda ubadkooda iyo sidoo kale dhiigga ummadda Soomaaliyeed tii ay sii dheertay kooxda al-shabaab oo iyaduna laf dhuun gashay ku noqotay dowladnimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed door bidayna inay badiyaan geerida ummadda Soomaaliyeed xilli ay dhibaatada ugu weyn mar walba ay gaarayso shacabkii Soomaaliyeed oo la isku hordilayo la isku agdilayo adiga sidee kula tahay masiibadan weyn ee ummadda Soomaaliyeed soo food saartay iyo qoyskan la eeday ee lagu xasuuqay weerarka halkaas ka dhacay waase maxay dhibaatadan cidda ka dambaysa aragtidaada